maxkamadda sare ee Soomaaliland maanta waxa lagu soo gabagabeeyay isla markaasina lagu qaaday kees wiil 12 jir oo muddooyinkii ugu dambeeyay ay isku haysteen gabadh lagu magacaabo Muna Cabdikariin Maxamed iyo laba nin oo u dhashay gobolka Sool kuwaasi oo magacooda aan la sheegin wiilkan yar oo 12 jir isla markaana magaciisa lagu soo koobay Farxaan ayaa hoolka maxkamadda sare ee Soomaaliland maanta dhageysiga dacwadiisa lagu soo gabagabeeyay wiilkan yar ayaa loo xukumay isla markaasina gacanta laga geliyay Muna Cabdikariin Maxamed oo ah gabadh u dhalatay wadanka Itoobiya kuna sugan Soomaaliland taasi oo la sheegay in dhiigga hidasidaha ama loo yaqaan DNA uu cadeeyay in iyadu dhashay wiilkaasi yar lagu soo koobay magaciisa Farxaan isla markaasina muuqaalkiisa laga qariyay warbaahinta gudoomiyaha maxkamadda sare ee Soomaaliland Professor Aadan Xaaji Cali Axmed oo warbaahinta la hadlay ayaa faahfaahin ka bixiyay marxaladii kala duwan oo soo maray kiiskani waxaana uu sheegay in maxkamadda sare ay ku dhawaaqin dacwad balse ay ku dhawaaqtay maxkamadda degmada gobolka Sool oo laga soo gudbiyay kiiskani waxaana goobta ku sugnaa dhaqaatiirta qaaday dhiigga loo yaqaan hidasidaha ama DNA-ga oo ay qaadeen Dr. Axmed Cumar Askar oo ah agaasimaha guud ee dhakhtarka weyn ee magaalada Hargeysa iyo Axmed Xaashi Faarax labadaasi dhakhtar oo ka soo shaqeeyay isla markaasina soo baaray dhiigga hidasidaha ee lagu kala baaray wiilka yar ee la isku haystay muddooyinkii ugu dambeeyay waxaana dhaqaatiirtu cadeeyeen inay dhashay hooyo Muna Cabdikariin Maxamed gudoomiyaha maxkamadda sare Professor Aadan Xaaji Cali Axmed oo gooreen halkaasi ka hadlay ayaa waxa uu yiri waxa ku guuleystay oo DNA-dii 199 in ka badan ay soo saartay ful ugu guuleystay hooyada halka fadhida ayaa ilmihii dhashay Farxaan iyadaanu soo baxay waliba hooyada waan idin sheegnaa waa dadka refugee-ga ah ee inala nool ee qaxoontiga Itoobiya ka yimid labada kalena waxaan laba nin oo muwaadiniin reer Soomaaliland cadaaladdu cidna ma taqaan halka waan idin xusuusinaa cadaaladdu waxa way Ilaahay in la cadaalad sameeyo Ilaahay uma laga baqaa cidna ma taqaano gudoomiyaha maxkamadda raafaanka ee gobolka Sool Axmed Diiriya Cilmi iyo gudoomiyaha maxkamadda degmada gobolka Sool Xasan Maxamed Warsamo iyaguna halkaasi ka hadlay ayaa waxa ay sheegeen in ay u soo gudbiyeen maxkamadda sare isla markaasina ay gacan ka siisay soo gabagabeynta kiiskan ka taagnaa muranka wiilka 12 jirka ah ee maanta lagu dhawaaqay natiijadiisa hawshan runtii badan bay socotay waxay ka bilaabatay maxkamadda gobolka Sool bay ka bilaabatay kadib hawshii maxkamadda waxay go'aamisay iyadoo darafadii ka duwasay maanta codsigoodii in lagu kala saaro dhiiggaas hidasidaha DNA-ga markii si kale loo kala saaro ee soo bixi weyday saddexda daraf oo daraf walba uu yiri ilmaha aniga ayaa dhalay oo iga lumay oo saas darteed ilmahaygii weeyay marka go'aankii maxkamadda anagoo maaragtay ku shaqeynayna iyo rabitaankii saddexda daraf ayaanu maaragtay u soo gudbinay Hargeysa kadib aad waxaan noo shaqeeyay gudoomiyaha maxkamadda sare Professor Aadan Xaaji Cali warqadna u qoray isbitaalka guud ee Hargeysa Dr. Axmed Cumar Askar iyo Dr. Axmed Xaashi Faarax oo iyaguna halkaasi ka hadlay waxay sheegeen in dhiigga hidasidaha ama DNA-gu cadeeyay in ay dhashay hooyo Muna Cabdikariin Maxamed sidaasina gacanta lagaga geliyay hawshan markaa hidasidahu waxay la tahay waa hawl aynaan inagu halkan ku sameyn laakiin ay suurtagal tahay in la isla kaashado yani goobo markaa iyaga ay u dhisan tahay farsamadii oo heer sare tahay anaguna waxaan la xiriirnaa waxa weeyaan shaybaar ku yaala Nairobi oo markaa aan u ahayn xiriirka muddo dheer shaybaarkaasi iyaga waxaan ognahay inay tahay kii lagu kalsoonaan karo wax la yiraahdo accreditation baa la yiraahdaa inay haystaan yani shahaadadihii hooyadani oo halkaasi dareenkeeda ka muujisay ayaa waxa uu mahad celisay maxkamadda waxaana ay sheegtay in Soomaaliland ka jirto cadaalad aan ay ka filaynin maada baa faraxsanahay marka hore Soomaaliland cadaalad bay ku shaqeynayaan maanta laakiin waxaan ogaaday dawladda Soomaaliland inay cadaalad oo ka jirto oo kalsooniyana lagu qabo ilaahay waxaan uga rajaynayaa insha Allah inay dawlad Afrika maamusha ay noqoto Somali News Hargeysa